qoys sida xayawaanka ku socda lugaha iyo gacmaha tuulo ku taala gobolka Hatay ee koonfurta Turkiga ayaa waxaa ku nool qoys sida xayawaanka ku socda lugaha iyo gacmaha. 2005tii ayay khuburo cilmi baarayaal ah heleen, waxaana ay sameeyeen baaritaano la xiriira sababta qoyskan ee lugaha iyo gacmaha ugu wada socdaan. qoyskan ayaa ka kooban 7 qof oo ay ka mid yihiin waalidka carruurta dhalay, 3 gabdhood iyo 2 wiil ayay ka kooban yihiin carruurta oo ka mid ah 2 waalid oo carruurta dhalay ayaa ku nool tuulo yar oo ay ku nool yihiin dad iska dan yar ah. waxyaabaha la yaabka ah ayaa ah in waalidka carruurta dhalay ay sida dadka caadiga u socdaan oo ay lugaha ku socdaan. Ha yeeshee 5 qof ee walaalaha ah ee ay dhaleen waalidiintan ayaa dhammaan ku socda lugaha iyo gacmaha, iyadoo saynisyahanada qaar ay qabaan in ku dhowaad 5 milyan oo sano ka hor bani'aadamka uu ku socon jiray lugaha iyo gacmaha. Ha yeeshee yaab ayay ku noqotay in malaayiin sano kadib la helo dad ku socda lugaha iyo gacmaha. baaritaano dheer oo caafimaad kadib waxay dhakhaatiirta iyo saynisyahanadu isku khilaafeen arrintan. dhakhaatiirta ayaa ku doodaya in arrintan ay la xiriirto dhaawac xagga maskaxda ah oo saameeyey carruurta, iyadoo saynisyahanadu ay ku doodayaan in arrintan ay tahay dhaxal imaan kara dhowr milyan oo sano kadib.